markii iigu dambeysay oo aan Addis Ababa imaado waxaa laga joogaa qiyaastii 3 sano iyo dheeraad. waa ka hor inta uusan dilaacin xanuunka Covid. isbedelka ugu weyn oo ay indhahigu qabteen waa farabadnaanta mashaariicda dhismayaasha oo meel walba oo magaalada ah ka socda. Videogan waxaan rabaa inaan idinkugula wadaago indhaynteeda arrimo dhowr ah oo i xiiso geliyay, lagana yaabo in macluumaadkiina Addis ay wax ku kordhiyaan. Addis Ababa waxay caan ku tahay maqaayado dhaqan oo laga helo cunto u badan tan ay Itoobiya dhaqanka u leedahay oo ay ugu horeyso canjeero daafi leh noocyo kala duwan. canjeero Itoobiyaanka ay maqaayadahan iibiyaan haddii aad dhadhamiso waxaa hubaal ah inaad halmaamayso canjeero kasta oo Itoobiyaan lagu sheegay oo aad mar uun hore ugu tijaabisay meel kale. Arrinta xiisaha leh oo ay maqaayadahan dhaqanku kaga duwan yihiin maqaayadaha kale waa in ay leeyihiin masrax habeen walba lagu soo bandhigo muusig, heeso iyo cayaaro dhaqameed soo jiidasho leh. waxaa laga yaabaa adiga oo baraad la oo bandhiga iska daawanaya in fanaaniintu ay kaaga yaabsadaan hees ama cayaar dhaqameed Soomaali ah oo haddii markaaga koowaad ay tahay aad u qaadan weyso. laakiin aan ku xusuusiyo in Soomaalidu ka tirsan tahay qowmiyadaha dega Itoobiya. masraxa maqaayadahana waxaa lagu soo bandhigaa ciyaar dhaqameedyada kala duwan ee qowmiyadaha Itoobiya. arrinta kale oo xiisaha leh oo aan ku arkay maqaayadaha Addis Ababa waa in noocyada cuntooyinka ay hayaan mar walba laga helayo cuntooyin caafimaad iyo dheef ahaan isu dheelitiran oo aan sida kuweyn u badan yihiin lagu soo koobaynin bariis, baasto, chapati, hilib ama kalluun. tusaale ahaan cuntadan oo hal baaquli ah oo aan dalbaday mar waxay ka kooban tahay digir madow, bariis, avocado, digaag, ansalaato, salad iyo suugo. cagaarka oo ka mid ah cuntooyinka dheefta fiican leh ayaad arkaysaa in liiska cuntada maqaayadaha oo dhan laga heli karo. haddii aad si gaar ah salad u dalbato waxaa lagu keenayaa baaquli buuxa oo ka kooban qudaar kala duwan oo ay adag tahay inaad kaligaa dhammayso haddii cirkaagu uu dhexdhexaad yahay. inkasta oo tagaasi casri ah ay magaalada ka shaqeeyaan, haddana arrinta xiisaha leh waa in Addis Ababa laamiyadeeda aad ku arkayso taxi nooca 124 ah. baabuurtii Fiat ee meelo badan oo Soomaaliya looga yaqaanay Janta 24 oo ah modelkii 60nadii ilaa 70nadii oo Soomaaliya xataa marka ahaa taxi caan ah, walow aysan hadda jirin inta aan ka warqabo. waxaa ku buufsan buluug iyo cadaan oo u eg midabyada calanka Soomaaliya. intiina xusuusato kuwa Soomaaliyan waxaa ku buufsanaan jiray guduud iyo jaalle oo ah laba midab oo ku jira calanka Itoobiya. waa sheeko xiiso iyo isweydiin leh sida midabyada labada taxi ay isu weydaarsan yihiin uguna eg yihiin midabyada labada calan. arrin kale oo aan fiiro gaar u yeeshay intii aan Addis Ababa joogay waa in nidaamka saacadda loo sheego uu la mid yahay kan inta badan koonfurta Soomaaliya laga isticmaalo. tusaale ahaan haddii aad rabto inaad xafiis ballan ka qabsato 10 subaxnimo, qofka howlwadeenka ahi wuxuu kuu sheegayaa in aad timaado 4 oo uu ula jeedo 4 saac subaxnimo. Addis Ababa wax walba way gaabiyaan oo tartiib ayay u socdaan. bilmatal internetka, korontadu maalintii waxaa laga yaabaa in dhowr jeer ay tagto. haddii aad tahay Soomaali uu degdeg ku furan yahay, Addis waxaad ugu soo talagashaa deganaan, dulqaad iyo kaadsiinyo badan.